waxaynu ka wada sheekaysanaynaa wixii aynu horay u degsanay aynu shacabkeena la wadaagnay maxaa inooga hirgalay maxaa inaga hor yimid maxaa inala gudboon hadda marka 3 sano ayaynu soo dhamaysanay sanadii afraad baynu galay waxaan hubaa in wadankan aad shaqo weyn ka qabateen dhinac kasta marka laga fiiriyo sector kasta marka laga eego haddaad fiiriso hal tusaale oo kooban waxaan filayaa 3 sano ka hor markii aad timaadeen iyo maanta magaalada Muqdisho labo waji oo kala duwan oo aad u kala fog bay leedahay waa tusaale hadday noqoto horumarka hadday noqoto amniga oo la'aantii aan horumarba jirin inta magaalada Muqdisho iska bedeshay in la eg ayaa dhinac walba iska bedeshay hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo finance-ka hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo arrimaha dibadda hadday tahay dhinaca adeega bulshada dhinac kasta marka laga eego intaas in la eg ayaa iska bedeshay waxaa la hubaa isbeddelkaas yimid inuusan iskaga imanin si accident wuxuu ku yimid dadaal aad bixiseen wuxuu ku yimid idinkoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo partnerskeena aan leenahay oo ina caawiya ayaad isbeddelkaa keenteen marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idin iraahdo waad mahadsantihiin marka labaad waxaan hubaa in challenges aad u fara badan ay idin hor yaallaan oo haddana dhinac walba leh amnigu ugu horeeyo dhaqaaluhu ku xigo adeega arrimaha bulshada ay ku xigto siyaasaddu ku xigto challengeyo waaweyn ayaa weli yaal maanta marka waxaynu taagannahay maxataad ka mid ah maxataadkii ay mar walba looga baahan yahay dadka aragtida lihi in intay istaagaan ay yiraahdaan xageen taagannahay shalay xageen joognay maanta xageen taagannahay berrina xageen higsanayna ummadii waxaa hagaa dawlad wanaagsan ummadii nasiib leh oo ayaan leh ilaahay wuxuu siiyaa mashruuc ama hogaamiye leh mashruuc wadaniya oo ummadeed oo xambaarsan aragti fog leh qorshayaal cadcad oo aragtidaas uu ku fulinayo isla markaana leh akhlaaq siyaasadeed dhaqameed oo lagu dayan karo intaa hadday meesha ka baxsan tahay waxaa laga yaabaa hoggaankii la rabay inuusan jirin Soomaaliya waa kan la yiraah aragti fog oo dhigan oo la fiirsado oo jiilba jiil ka dhaxlo oo deedna loo sii xiraguul gareeyo oo loo sii hayaamo oo la isu sii daba socdo hadda ka hor ma yeelan
wax yar baa la dhiganayay raggii ragaha qaar baa hadda inagala joogeen waxaan u maleynayaa generaal faarax qara jooge raggaasi qodobay dhigteen hadday tahay arrimaha dibadda iyo hadday tahay arrimaha gudahaba qodobadii baa durba ka dhammaaday kadibna way isku soo jeestadeen qodobadii durba way dhammeeyeen laakiin hadday meel fog degi lahaayeen mayna isku soo jeedsadeen marka xukuumaddan oo madaxweynaheedu xasan sheekh maxamuud yahay waxaa la keenay aragti dheer oo 35 sano la rabo inay meel loo sii soconayo degtay xukuumaddanina waxay ku kabtay NTB iyo qorshayaal cadcad oo lagu gaari karo meeshaas fogay la degay 35 sano kadib waxaan u malayn dadkan inta ka hor dhimata Allah u naxariisto inta kalena ayadoo aan laga yaabo inaynan talaabo qurux badan socon ayay gaari doontaa laakiin waxaan isleeyahay dadka nool xilliga haddii visionkan siduu yahay loo xaqiijiyo waxay ku dhex noolaan doonaan Soomaaliya tanka qurux badan waxaan nahay marka dadka hayaankaas bilaabay ee raba inay jeexaan jid cad oo aan dadka Soomaaliyeed aynan iska daba wareegin mar dambe oo ina siyaasadda Soomaaliyeed mar dambe iska daba wareegin oo la iska dhaxlo oo la yiraahdo hebel baa halka ku joojiya anna wataas meeshaan fiirsanayna waa meeshaas loo soconay inaan inagu sameeyno iyo inay kuwa inaga dambeeya sameeyaan iyo taas micno badan ma leh laakiin waa in la xaqiijiyaa geediga dheer ee hadda uu wasaar ku-xigeenku uu tilmaamay baa ina sugaya bari waxa inoo bilaaban doona marka si guud saan sheegay wax weyn ayaa la qabtay oo aniga idin miitaal idin ku soo qaatay magaalada inta isbedeshay dhaqaaluhuna isbedelay dalka iskama lihin markhaatiyaal cadcado baa jira arrimaha bulshada isbedeshay waxa isbedeshay siyaasadda guud ee dalka ee arrimaha dibadda intaasoo dhani bilaash kuma imaanina shaqaad idinku qabateen bay ku timi ha yeeshee geedigu uu dheer yahay weliba jid fudud ma aha waxaan u baahannahay marka inaan diyaar garowno waxaynu berri laga bilaabay isweydiinayna waxa weeye wixii aynu googoosanay ee aynu niri sanadkan intaasaynu qabanaynaa mid termka intaasaynu qabanaynaa oo aynu mar hore kala saxiixanay ayaynu eegayaan maxaa inooga hirgalay wixii inoo hirgalay waa inoo hirgeli waayeen waxa hirgeli waayeen maxay u hirgeli waayeen taasaynu ka sheekaysan doonaa iyo maxaa haddana aynu halkaa xaggeen uga sii dhaqaaqnaa inagoo fulinayno qorshihii iyo national transformation plan keeni caadiga intaas weeye insha Allah intay beri inoo bilaaban doonta waxaan rajaynayaa nimanka aqoon-yahanada ee ka shaqeeyay markaan runtii ay soo bandhigeen habka ay arrintaas طبعا iyagoo wasaaradihii iyo hay-adihii iska lahaa daytada ka soo qaaday haddana habka ay isugu kariyeen ee aadka u wanaagsan ee aadka u qurux badan waa hab keenaya result oo ah excellent baa tahay good baa tahay very good baa tahay ama haddii kalena waa dhacday marka waxaan rajaynayaa inay wasaaradda dhacda jirin ilaahay idinkiis mar kale waxaan rabaa inaan aad iyo aad runtii idinku mahad celiyo waxaan rabaa daahfurkaas inaan idhaahdo si officially insha Allah waa inoo furan yahay waadna mahadsantihiin guul iyo gobonimo inoo rajaynayaa marka dambana sida la sheegay
waxaynu soo bandhigi doonaa sidii caadiga inoo ahayd ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigi doonaa 3 sano ayna dhaaftay wixii aynu qabanay sanadkii horena 2 sano ayna dhaaftay wixii aan qabanay baynu ummadda Soomaaliyeed u soo bandhignay haddana waxaynu u soo bandhigi doonaa 3 sano ayna dhaaftay maxaynu qabanay ayaynu u soo bandhigi doonaa hadii la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed marka waxaynu ku mashquulsanahay inagu waxa taabanaya nolosha qofka Soomaaliyeed amnigiisa waxbarashadiisa caafimaadkiisa horumarkiisa iyo ixtiraamka iyo karaamada uu adduunka ku leeyahay baynu ka shaqeynayna kuma mashquulayno dad kuma mashquulayno siyaasada kuma mashquulayno istaba wareegii ummadda Soomaaliyeed loo yaqaanay waxa waan ka gudubnay inagu shaqada inoo taalaay waxa weeye qofka Soomaaliga dantiisa inaan ka shaqeyno dalkan dantiisa inaan ka shaqeyno dadka Soomaaliyeed dantooda inaan ka shaqeyno sidaas aynu ku noqonay marka dan qaran aad baad u mahadsantiin guuleysta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh